xaflad ballaaran oo ay soo qaban qaabiyeen guddiga jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Riyaad laguna maamuusay soo dhaweynta danjiraha cusub ee dawladda Soomaaliya u soo magacawday dalkan boqortooyada Saudi Arabia mudane Daahir Maxamuud Geele ayaa lagu qabtay hoteelka Holiday ee magaalada caasimadda ee Riyaad ee dalkan boqortooyada Saudi Arabia xafladan waxaa ka soo qayb galay labada xogeeye ee safaaradda Soomaalida ee Riyaad oo qaybsanaha arrimaha militariga ee safaaradda ee dalkan Sacuudiga ka tirsan howlwadeenada safaaradda ururada bulshada rayidka dhalinyarada haweenka odayaasha kooxaha fanka iyo sugaanta iyo waliba isboortiga gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Riyaad mudane injineer Abuukar Sheekh Cabdiraxmaan Yaaqshiid oo isagu halkaasi hadal ka jeediyay ayaa waxa uu sheegay dhalinyarada isboortiga fanka haweenka bulshooyinka Riyaad oo dhan odayaasha culimada waxaan leeyahay waxaan caawa halkaas ugu nimid inaan ku soo dhaweyno Safiir mudane Daahir Maxamuud Geele iyo inaan sigootino safiirka hore mudane Axmed Cabdallah marka waxaan leeyahay reer Riyaad Safiir way ku soo dhaweynayaan hadal iga ma furna laakiin saddex walxaad ayaa rabaa inaan ka hadlo marka ugu horeyso Safiir waxaan rabnaa inaad noqoto safiir bulshada ku dhex jiro oo ka xiran albaabka inaad noqoto koow waa kaa dalbanayna midda labaad inaad shacabka meesha ay degan yihiin junuub Riyaad nin safiir oo yimid ma jiraan inaad noqoto nin safiirka ugu horreeya oo meesha ay Soomaalida degan tahay yimaado oo la qoraysto la joogo inta midda saddexaad waxaa weeye maaragtay waxaan diyaar halkan ummadda reer Riyaad hortooda kaaga garaynaa danjiraha cusub ee dawladda Soomaaliya u soo magacawday dalkan Saudi Arabia mudane Daahir Maxamuud Geele ayaa u mahadceliyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Sacuudiga sida diiran ee lagu soo dhaweeyay magaalada Riyaad wuxuuna intaasi raaciyeen howlqabadka xafiiskiisu ay ugu horeyn doonaan adeegyo hufan oo ka turjumaya danaha iyo maslaxadda guud ee Soomaalida ku nool dalkan Saudi Arabia Soomaaliyeed arrinkan sida hagaagga isku soo dubariday iyo dadka ka soo qayb galay waxaan rabaa fariin inaan idin gudbiyo safiirkeena hore Axmed Cabdallah waa la xiriiray wuxuu noo sheegay inuu xanuunsan yahay ficlan waana xanuunsan yahay oo fadhi badan aan u adkaysan karin marka salaantiisina waa idin wadnaa anigana meesha ku matalo adigana ugu matalo meesha tag marka salaantiisina aad guddoontiina waan rabaa waxay tahay inaan tilmaamo dadka Soomaalida maankooda ma gurin marka wasiir hore warfaafinada ahay fanka iyo fanaanka iyo abwaanka iyo hal-abuurka waa ka warqabaa laakiin haddana halkaan ku dhashay ama u ekaa inay curiskaas iyo maaragtay qaabintaas iyo nidaamkaas ay leeyihiin ma aan u malaynaynin marka fariinaha hadda halkaan waxaan ugu diraa wasiirka warfaafinta maareeye waxaan leeyahay Riyaad baadi badan baa kaaga maqan waa ku inay soo xirto waxaan rabaa oo kale inaan mahad celiyo aniga dawladda ay soo dirtay dawladda aan galata shaqadan dawladdii oo madaxweynuhu ugu horeeyo iyo intii ka hooseysaba halkaan mahad celin uga diraa waxaan rabaa inaan idiin sheego dareen aad u qiimo badan inay idin hayaan oo ah in bulshada meeshaa joogto adeegga la sii jiray adeeg ka gedisan oo ka horumarsan in la siiyo ayaa la ii soo diray fariintaasi dawladda dabcan dawladda Sacuudiga waa martida u nahay waa dalkeena ka shaqaysanay waa dalkeena iyo dalkeena isku xiran yihiin oo aan u taaganahay ama aan u imid in xiriirkaas isaga la horumariyo waxaad gaar ay leeyihiin waxaan ugu filan halkaan aan meesha joogno ammaankeennuna waa sugan yahay dadkeena way ka shaqaysaan qaarna waxbay ku bartaan marka meel haddii la tago bulshadu markaas ay barato faa'iidadeedana way barataan Cabduqaadir Qayska Somali News TV Jeddah Saudi Arabia